islaantii baa la weydiiyey maxaad odhanaysaa baa layidhi labadii nin waa kuwana way is haystaane waxaa la isku haystaana waa adiga maxaad odhanaysaa bay tiri dee anu waxay tiri haddaan qaybsami karo haddaan qaybsami karo halay qaybiye badhna kan hala siiyo badhna kan hala siiyo ma jecli qisooyinka xunxun inaan sheegay murugada iyo ciilka lehee aad ka maror dilaacaysa markaad maqasho laakiin waxay noo sheegaya laba qisoo wanaagsan Taawus ibn Kaysaan taabicigii la odhan jiray ayaa warinaya wuxuu leeyahay nin baa wuxuu dhalay 4 wiil ninkii 4 wiil dhalay wuu jilcay uu gaboobay markaasaa inamadii mid ka mid ah wuxuu ku yidhi nin ladan baanu ahaa oo ilaahay wax siiyey wuxuu yidhi inankii baa ku yidhi inamadiisii ka mid ah niman yahow dhagaysta buu yidhi odayga aniga isiiya anigaa daryeelaya anigaa u hagaajinaya anigaa u maydhaya anigaa u qurxinaya anaa udgooninaya anigaa u duugaya dhaxalkana idinku qaata dhaxalkayga aniga marka hadduu ilaahay aabbo oofsado qaata idinku waana dhaxal badan weeye ama midkiinow shaqadaa qabo dhaxalkana waxba kuma lihid ilan bani aadamkan guri baa laga raacay saddexdii waxay dhahan maya ee adigu odaygana daryeelo ka shaqeeya dhaxalkana waa markaasuu yidhi waa yahay isna waa intuu u xanuunsanayeyba odaygiibuu daryeelay wuu ka shaqeeyey wuu u dadaalay waajibkiisuu ka gutay habeen iyo maalin buu dul taagan yahay kama rawaxo kama hoydo reerihiisii iyo carruurtiisii ugama tago siduu sida ugu hayay ayuu odaygii ilaahay oofsaday subxaanahu wa tacaala markuu ilaahay oofsaday ayay nimankiina xoolihii badnaa ay qaybsadeen 3 nin nafiska u dhaceen ninkiibaa habeenkiibuu riyo arkay ninkii aabbihii daryeelay waxaa la yidhi odamir heblo tago 100 diinaar ka qaado 100 diinaarna waa lacag aad u badan oo dahaba weeyaan markaasuu wuxuu yidhi baraka miyay leeday markaasaa lagu yidhi maya baraka ma leh waa yahay buu yidhi subaxdii markuu soo toosay ayuu xaajiyaddii u sheegay iyana waa fuqara weeye iskama furaan lacagtaasaa la yidhi doono xalayto laakiin waxaa la ii raaciyey baraka ma leh ee maxaan yeelaa war lacagta inoo doon bay tiri sidoo qolyahay nimka jooga musoo maaha lacagta inoo doon bay tiri barakadaa dhacday waynu ku munaafacaadsanaynaah wuxuu yidhi dooni maayo muu doonin habeenkii labaad buu haddana riyooday meel heblo tag baa la yidhi 10 diinaar ka qaado markaasuu yidhi barako ma leedahay markaasaa lagu yidhi maya barako ma leh subaxdii buu xaajiyaddii u sheegay waar noo doon bay tiri naga daawaalido
waynu u baahannahay dooni maayo buuri soo qaadan maayo habeenkii saddexaad ayuu riyo arkay la leeyahay ordana hebla ka doono 1 diinaar markaasuu yidhi baraka ma leeyahay markaasaa la yidhi haa meeshii buu tegey diinaarkii buu soo qaatay islaantii buu u sheegay islaantii buu u keenay diinaarkii markaasay tiri orodoo waxay noogaga soo iibi suuqa wuu soo baxay wuxuu arkay nin 2 kalluunoo waaweyn walwaalaya oo ku sii socda xaggii suuqa war 2 kalluun maxaad siinaysaa 1 dirham baan siinayaa buu yidhi 1 diinaar baan siinayaa mana kala hadhayaan haygu odhanin buu yidhi nus diinaar baan doonayaa aniga miduu niga iibi ama labadaba wada qaado ama ka wada tag war labadaba keen buu yidhi diinaarkiisina wuu dhiibay gurigii buu geeyey islaantii kalluunkii ayay dee bilowday inay jarjarto markay saa u qashay ee kala dhambashay mise kii hore waxaaba ku jirta jawharad luulahoo qaaliya oo kalluunkani liqay jawharaddii bay ka saartay way tustay odaygii alxamdu lilah buu yidhi kii labaad bay qashay isna markay kala dhambashay isna sidii sila jawharad kale ugu tagtay oo isna uu liqay labadii jawharadood buu haystay boqorkii ayaa wuxuu yidhi waxaan u baahanahay jawharad noocaasa ayaan u baahanahay qofkii keenana waxaan siinayaa 30 awr lacag lagu raro ayaan siinayaa 30 awr lacag lagu raro ninkii baa jawharaddii u geeyey waa barakadii weeye 30kii awr baa loo soo raray oo lacaga 30kii awr markuu dhigtay ayaa haddana waxaa la yidhi jawharad kale ayaa loo baahan yahay oo noocaasa ninkii haya intii hore labanlaabkeed baa la siinayaa markaasuu yidhi anigaa haya keen baa la yidhi wuu keenay 60 awr lacag lagu raray ayaa la soo siiyey saasuu ilaahay ku barakeeyey oo uu noqday ragga waddanka ugu taajirsan samafalkii uu u samafalay aabbihii ee uu u dadaalay ee uu jannadiisa ka shaqaystay adduunkiina saasaa loogu nimceeyey aakhirana wuu liibaanayaa ilaahay idankii subxaanahu wa tacaala aakhirana ilaahay idankii wuu liibaanayaa taasi waa qisada labaad waxa weeye laba inanoo walaalo ah ina dalkan sacuudiga ka dhacday kii weynaa ayaa islaantii markay jilicday markii hore wuu u ogolaa inay bilna xaggan joogto bilna ay xaggan joogto waa hooyadood markay jilicday ayuu yidhi hooyo la kaxkaxayn maayo ee hooyo anigunbay la joogaysaa kii yaraabaa yidhi maan aqbalin arrinkaa aad sheegayso
maan aqbalin gawaadhi balballaadhanna waynu haysannaa oo xitaa iyadoo jiifta lagu soo qaadi karo iyadoon fadhiisanin oon tabcin jiifkeeda inta gaadhiga la saaro haddana laga sojin karo ee ma dhacayso inaad adigu aad wada qaadato qisada markii aan maqlay aad baan uga ilmiyey iyo wadciga imika hooyooyinku ay ku jiraan labadii inan waxay isku haystaan hooyadood aynu wada daryeello iyo maya aniga keligay baa daryeelaya soo yuucan maaha soo yuucan waa taqaanaa soo maa qisadeeda yaa ma taqaanaan soo yuucan qisadeeda saasaan idin lahaa qisooyinka xunxun ma jecli inaan ka sheekeeyo waxaa lagu dooday labadii inan maxkamad bay isla tageen kii yaraa maxkamad buu saaray kii weynaa inuu daryeelkii hooyo kelidii uu goostay hooyadii baa maxkamaddii la keenay iyadoo sariir lagu sido qaadigii baa loo keenay kii weynaa doodiisii buu sheegtay wixii ku cudurdaaranayay buu ku cudur daartay hooye marka way jilicday waa sidan sidii berigii hore oo kale maaha lama rarari karo kii yaraana wuxuu yidhi wuxuu sheegaya sheekha waxba kama jiraan gawaari balballaadhan baanu haysannaa oo sariirahan cagaha ka laabma inta loo saari karo lagu keenayo gurigaygii lagu daryeelayo wakhtigayga sidaa loogu daryeelayo ee ninkan wuxuu doonayaa uun inuu baarinimada hooyo inuu ku keliyeysto doonaya inuu ku keliyeysto ayuu doonayaa islaantii baa la weydiiyey maxaad odhanaysaa baa layidhi labadiini waa kuwana way is haystaane waxaa la ysku haystaana waa adiga maxaad odhanaysaa bay tiri de anu waxay tiri haddaan qaybsami karo hallay qaybiye badhna kan hala siiyo badhna kan hala siiyo calaa kulli xaal qaadigii wuxuu xukumay in sidii hore uun lagu wado maadaam qalabkii iyo wixii lagu wareejinayey la haysto kii weynaa baa lagu yidhi dee ha dulmihin walaalka